dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa baaq nabadeed u diray xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale maamul goboleedka Puntland oo maalmihii u dambeeyay dagaal ku dhex maray deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool. Bulshadani ayaa waxay carabka ku dhufteen in markasta nabaddu muhiim tahay ayna iska ilaaliyaan wax kasta oo wax u dhimaya ammaanka shacabka. maanta waan ka hadlayaa arrinta noo dhaxaysa annagii Soomaaliya annagoo ah laba dawladood Soomaaliland iyo Soomaaliya waana anagu dawlad marka dhammaystiran waxa xudeega waanu gaaraynaa cidna uga hormayno haddana shacbi xukuumadda ku taageersanay ciidamada qalabka sidana waanu garab taagannahay haddana shacabka shacabka Soomaaliland waxaan leenahay farmaajo haddaad ka waantoog weydo hagardaamada aad lagu soo qaaday aad Puntland dadka soo riixayso cawaaqibmada aad kala kulanto waxbaan laga siin waxaanu ka hadlaynaa maanta waxa weeyaan shacabkii Soomaaliland oo isugu yimid suuqa dhexdiisii fagaarihii suuqa sida la jigad waxaanu isugu nimi inaanu ka hadalno arrimaha ka jira Tukarraq iyo gobolka Soomaaliland iyo Puntland iyo Puntland iyo Soomaaliland sida la jigad waxaan doonaynaa inay nabadda ilaashadaan xuduudoodana ku ekaadaan cidina iyagana dabada ka soo riixatay yihiin Puntland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh. waxaanu leenahay labada dawladood ee jaarka ah ee isku haysta Tukarraq iyo aageeda waxaanu u sheegaynaa inaanaan raalli ka ahayn xagga iyo xagga toona in lagu dhinto xagga ku dhimanayana waa Soomaali waxa ku dhimanayana waa Soomaali raalli kama nihin ma jecelin waxa weeyaan hal la joojiyo nabadgelyaha lagu soo dabaalo sheegaya in nabad la ilaaliyo adeer colaadna wiilkuma dhashay wiil baa ku dhinta marka waxaan leeyahay heer Puntland adeer faragelinta naga daaya haddii aan ka hadlo mawduuca Puntland iyo Soomaaliland waxaan u sheegayaa gobolkan Garowe madaxweynaha maamula Cabdiweli Soomaaliland waa qaran jira xuduudaheedana way soo xidhaysaa jiritaanka Soomaaliland waa muqaddis ciidankuna waxay tagayaan yoocada oo hadda 7 kiiloomitir u jiraan duleedka Garowe waxaanu ku sameeyay xuduudka Soomaaliland Garowe dushiisa ciidankuna uu tagayaa amarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi baa jira kaasana lagu shaqeynayaa ilaa meeshii loo baahdo waa la gaarayaa ciidanka Soomaaliland xuduudku soo xidhaya laakiin ilaaqaadka iyo walaaltinimada iyo wanaagga isdhexgalka waa in labada dawladood ilaaliyaan Tukarraq dagaalka ku dhex maray dawladda Soomaaliland iyo Puntland waxaanu leenahay horta dagaalka hal la joojiyo nin walibana xadkiisa ku ekaado Tukarraqina waa xuduudda Soomaaliland ciidankuna xadkiisu u suganaya ceeb kale ma sameeynayo marka waxaanu leenahay nabadda hal la ilaaliyo nabadgelyada hal la ilaaliyo dadkana yaa la luminin ciidankuna xadkiisu u sugaya annana waanu kula soconaa heegan baanu nahay haddaanu nahay shacabka Soomaaliland dhammaantaya waxaan leeyahay Puntland walaalayaal dad walaalaa baynu nahay dad jecel baynu nahay dagaalku dhexdeena inuu ka dhaco ma jecla nabadaan la jecelnay haddaan nabad diidaan alla og haddii kale nabadban walbayn la doonayn istakale abaan cawri ayaa dul maray maasay isugu jirta baaq iyo sidoo kale istifaaci waxayna u dhignay sida horta dalka mid waxaanu nahay dawladaha dunida joogno daaha iyagu waa calan kaas runtu sheeyada diilimaha cadaanka iyo doog yacsan kale dusha magaceebiyo daabacaad oo aan iyo dul xariira lagu tolay kan aan daadagaynin duugoobahayn dildilaacahayn hadsadaan dadkiisii difaac qaran kuleeyo tarajay dilaacsoo daalin baanu leenahay wadigniin difaac qaran kuleeyo tarajay dilaacsoo daacadaanu leenahay duqay talada haysiyo dastuurka qoreen iyo dawlad baanu leenahay madaxweynaha doorto daacadaanu leenahay Puntland deris baanu nahay dad wada dhashay baanu nahay dawladda jaaraanu nahay hadduu daqar yar ku dhaco durbabaana way gu yaal dagaalka sokeeyay iyo colaaduhu way turkaan degmada nabad baa u wacan danteennuna waa sidaa hadda taadi dantiin dab soo hindhisaanu dalkana kuwan baa iska leh isku soo wada xooriyo dagaalkani ayaa ilaa shalay u muuqda mid soo qaboobaya oo Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.